السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لمان أصحابتك كحرن أمجد ديجيتال كسو دوادا عشر كيني أفراد كاسو أنكو برنينو سوشيال ميديا ماركتين. هدي هذا صوت داوان موقالة دي هوريتو سيدا عشر كي كواد لواد يسدحات فضلا جوجي صوت داو عشرة دي هوري سي عشر كانوا أقول هذا معنو عشر كيني أفراد وحنكو برندونا أديس مانيجر in aan baranno Ads Manager soo u shaqeeyo iyo wax walba oo la xiriira Ads Manager-ka. Waxaan soo sameynay page-kii ayaan soo sameynay, waxaan diyaarinay Business Manager, waxaan diyaarinay ad account ama meeshii xayisiinta lagu sameynayay ama Ads Manager. Marka meeshii xayisiinta lagu create gareynayay inta aanan xayisiin abuurin waa in aan fahanaa basic waxyaabaha muhiimka u ah ama waxyaabaha asaasiyaadkeeda inaan wax badan ka fahanno. mar walba Ads Manager-ka meeshan uu kaga soo muuqanayaa waxaa kaloo kasoo geli kartaa Meta Business Suite waa kasoo geli kartaa waxaa kaloo isticmaali kartaa oo ku wanaagsan inaad kala socoto xayisiimaha aad samayn doontid Ads Manager oo application caadi ah oo mobilkaaga ku jiro. hadda anaga waxaa kasoo gelaynaa qaybta Meta Business Suite. Meta Business Suite markaa ku dhufano waxaan tegi jirnay qaybtaas waxaan geli karnaa midka aan rabno oo maaragtay business manager-ka aan soo diyaarinay midka aan rabno ayaan ka geli karnaa. waxaa kaloo ku dhufan kartaa meeshaas hadda aad u jeedid Ads Manager directory ku geynaysaa ama all tools haddii aad tagto tools fara badan oo ku jira halkan oo mid haddii maaragtay waqtigeeda la gaaro waxyaabihii noo muhiim ah aan baran doono. soo marka Ads Manager oo kale meesha ugu dhufan kartaa. Anyway hadda anaga waxaan ugu dhufanaynaa halkaas oo ah Ads Manager banaankana ugu soo dhufan karnay dhammaantoodna waa isku mid. Ads Manager markaa soo furno qaabkan ayuu ku soo baxayaa laakiin haddii anaga hadda waxaa ku soo xirnay payment ya ku soo xirnay laakiin payment haddaysan ku xirnaynin meeshan waxaa kaaga soo muuqan doonto add payment method macnaha payment ku dar oo kale way ka soo muuqan doontaa. soo marka koow waxaa baranaynaa qaybtaas oo verticalka columnkaas oo geeska oo dhanka maxaa la dhahaa bidixda ah. hadda wuxuu saaran yahay campaigns xayisiimaha oo aan sameynay ayaa halkan ka soo muuqan doono. waxaa kaloo geyn kartaa account overview hadaa geeno wuxuu soo saari doonaa haddii lacag lagu leeyahay haddii active tahay waxyaabo oo general ah. haddii aad rabto report oo kale xayisiimihii aad soo sameyn jirtay in aad tusaale xayisiin kamid ah dib u raacdo oo tusaale bilowgii ilaa dhamaadkii aad intii lacag ku baxday dadkii ay gaartay resultigeedii conversionkeedii aad rabto halkaas ayaa kala socon kartaa. audience-ga oo tusaale ad account-kaas ama business manager-kaas audience-giisa halkaan kala socon kartaa. waxyaabahan kale waa iska maaragtay kuwa dheeraad ah. waxaa kaloo very important ah billing and payment. marka billing and payment-na waxaa waaye waa meeshii aad ugu xiri laheeday payment adigoona wixii aadan ku xirin paymentiga ama lacagtii meeshii laga jaran lahaa adoona ku xirin wax shaqeynayo ma jiro. soo marka waxaa dhihi doontaa hadda anaga waxaan ugu xiran payment tusaale payment method daad ku dhufano waxaa ku xiran paymentigaasa ku xiran. marka adigana hadduu aad rabto inaad ku xirtid waxaa dhihi doontaa add payment method. marka payment method meeshaas aad dhihi doontaa marka aad dhahdana waxaa gelin doontaa magacaagii paymentkii iyo waxyaabihii la xiriiray waan cashirka horeeto kusoo qaadanay kan kusii daahin doono. okay haddii aan banaanka usoo laabano oo qaybtaas aan kasoo baxno kow qaybta ugu sareyso waxaa kasoo muuqan doono ad account-kaaga ama Ads Manager-kaaga magaca oo bixisa ayaa kasoo muuqanayo. haddii uu default yahay midka koowaad oo Facebook-kaaga magaciisa ayaa kasoo muuqan doono haddii aadan wax ad account aadan sameynin. marka hadda anaga waxaa nooga muuqan Abdiasiis Amjad ad account aan u bixinay. haddii waxyaabo kale ay ku samaysan yihiin meeshaas aad leedahay simo intii ad account ku samaysan ayaa kasoo muuqan doonta halkaa. okay waa qaybtaas sare marka midka uu joogo waa inaad iska hubeysaa waa muhiim. haddii aadan iska hubinin hadhow waa maaragtay waxaa laga yaabaa ad account kale inaad ku qalado. marka midka uu joogo waa kaa. haddii aan rabno marka xayisiin inaan sameyno waxaan leenahay create. qaybtaas create marka lagu dhufanayo waa qaybta xayisiinta markii aad rabto waana baranaynaa waa u tegaynaa. cashirka soo socdo ayaa waxaan ku qaadan doonaa iyo cashirada kaleeto xayisiimaha anagu abuureyno.
okay qaybtaas intoo kale waxaa kamid ah waxaa la dhahaa AB test. AB test waxaa waaye waxaa la isbarbar dhigaa laba xayeysiin oo A iyo B ah. tusaale xayeysiin sawir ah, xayeysiin oo video ah, qoraalada la isbarbar dhigaa, waxyaabo size-ka ama cabirada oo xayeysiimaha maaragtay conversion ama awareness waxyaabahaas la isbarbar dhigaa, ama call, WhatsApp, Messenger. test yaa sameynaysaa xayeysiinta intaadan sameynin inaad iska tijaabisid keebaa wanaagsan, keebaa ku wanaagsan, keebaa ganacsigan suit ku ah ama ku haboon. waa AB test ayaa lahaa. xayeysiimaha halkan kaaga soo muuqan doono haddaa rabta inaad iska deleedo meeshaas aad ku dhufan doontaa delete. waxaa soo dooran doontaa tick ayaa soo saaraysaa midka aad rabtid inaad iska deleedid, kadibna waxaa leedahay delete. waxaan ku guda jirnaa rowgan ama qaybta sare. meeshaasoo kale rules ayaa lahaa. waxaa waaye waxaa sameyn kartaa rule. tusaale waxaa leedahay xayeysiimaha haddii ay naqdaan maaragta haddii ay sameeyaan overlap oo kale, ama xayeysiimaha haddii isku audience naqdaan intaas ay naqato kale iga xir, waqtigaas iga xir. macnaha waxaa sameyn kartaa rules ayaa abuureysaa, ama waxaa sameynaysaa ruleska ku sameysan ayaa manage gareyn kartaa. waxaa dhigi kartaa xayeysiim waqtigaas markii la gaaro dhammaan xayeysiimaha haddamaan off ha dhahaan oo kale. marka meeshaasna waxaa waaye waa rule markii la sameynayo ama rule markii la abuurayo. qaybtan waxaa waaye waxaa sameynaysaa waxa meeshan kaaga soo muuqanayo ayaa kala bedeli kartaa. hadda number 1 waxaan u ah delivery, budget, result, reach, impression, cost per result. waxaasoo dhan ayna deleedid waxa adi aad rabto ayaa meeshaas ka soo muujin kartaa. sidee uga soo muujin kartaa? waxaa ku dhufanaysaa halkaa ay ku qoran tahay columns ama customer hadda saaran. qaybta ugu hooseysa tegeynaa. marka qaybta ugu hooseysa tagno waxaa dhihi doonaa customize column. waxaan customize gareynaynaa waxa noo soo muuqanayo. hadda halaha noo soo muuqanayso waa campaign, delivery, ad set name, budget, waxyaabahaas. midka aad rabto waa deleedaysaa. delivery waa deleedayna haddaan rabno. ad set name waa iska deleedayna haddaan rabno. wixii aad rabnaa deleedaynaa, wixii aad rabnaa kusoo darsanaynaa. wixii aad kusoo darsanaysa intaa ka helaysaa halkaanaa ka helaynaa. hadda meeshan waxaa ujeedaa waxyaabaha tigta inoo saaran way inoogu soo darsan yihiin. lacala waxaa u baahan nahay inaan kusoo darno CTR, tusaale oo lahaay click through rate. waxaa rabnaa kusoo darno cost per click. waxyaabahaas anything aad rabto inaad kusoo darto waa dooranaysaa. waxaa rabnaa inaan kusoo darno tusaale video play, tusaale dadka 100% fiirsado kale tigaa saaraysaa. waxaa rabnaa inaan kusoo darno lacala haddii xayeysiinta tahay instant experience ama xayeysiin form la buuxinayo tigaa saaranaysaa. macnaha wax walba u baahan tahay halkan linki click hadaa rabto, linki clicks inaan kusoo darnaa rabnaa. dadka inta qofoodo linki click gareysa inaan aragno. everything adiga isleedaha waa u baahan tahay halkan aad ka helaysid waa kusoo darsanaysaa. marka kaa kusoo darsato lacala hadda waxaa rabnaa CTR inay noo kormarto, waxaan geynaynaa halka uu sareeyo. waxaa rabnaa quality rank inuu noo koro, halkaasaa geynaynaa. midka aad rabto tusaale waxaa rabnaa video, xayeysiinteena waa video, inta play gareysaa rabnaa, halkaas ayaan geynaynaa. kadibna waxaa dhihi doontaa apply. intaa apply dhihin si waxaan mar walba ugu daalin, waxaa sameynaysaa meeshaas ay ku qoran tahay save as column preset. waa save gareynaynaa, magaca u baxsanaynaa. testio kale amjad iskale tusaale, magacaasa u baxsatay, waa apply gareysay. tusaale marka haddii mar kaleeto oo xayeysiin aad soo furto ee kan kuu apply oosan kuu soo saarneen, meeshaas ku dhufan doontaa kanaad dooranaysa. hadda annaga wayna saaran tahay. waxaa ujeedaa CTR ugu horeyso inta percentage 100% videoga ama xayeysiinta aad sameysay ayaa ugu horeeyo, taasaa sameynaysaa. marka waxaan sameynaynaa halahaas hadda waa columnkii. haddii aad rabno marka report qaybta kale, haddii aan sii soconno report, haddii aad rabtid inaad report sameysid, reportkaas aad abuureysaa. report cusub waa sameyn kartaa. tusaale waxaa dhigi kartaa waxaa report iga sameysaa xayeysiintan inta reach ay sameysay, costiga ku baxay iyo cost per result, lacagta ku baxay. intaasoo kale waxyaabahaas aad sameynaysaa. waxaa kaloo sameyn kartaa daatadan meesha ka muuqato oo tusaale resultiga, reachka, impressionka, video playgaas inaad isku sameyso export, inaad la degtid igoo maaragta maxaa la dhahaa excel ah, ama hadba wixii aad rabtid inaad kula degtid.
qaybtaas marka waa ka dhex baxnay. qaybta ugu sareyso waxaa ujeedaa hadda wuxuu saaran yahay bishan oo 1 May ilaa 26 May ah. waxaa samayn kartaa markii aad rabto ayaa ka dooran kartaa. waxaa dooran kartaa maximum bilowga xayeysiinta ilaa hadda ee socoto. waxaa dooran kartaa maanta xayeysiinta socoto wixii ku baxay dhaqdhaqaaqeeda. badanaa waxaa fiican inaad today ka dhigto sometimes si aad ula socoto xayeysiinta maanta kuu socoto, dhaqaaqeeda sidee u shaqeynayso, hoos u dhacma ku imaaday shaqadeeda, waxyaabaha si aad u fahanto inaad today saarto. haddaa rabto inaad saartid last 7 days kii ugu dambeysay, last month, wax walba u baahan tahay meeshaas ayaa ka dalbanaysaa. kadibna waxaa leedahay update. waxaan rajaynayaa inaan isla fahanay qaybtan jiifkan ama korkan waxyaabaha oo ka muuqdo iyo qaybtaasbo. create markaa ku dhufano waxaa noo soo baxayo waxyaabahaas. tusaale waxaa ka mid ah campaign objectives. waxaan baranaynaa marka qaybteena ugu horeyso oo ah xayeysiinta markaa sameynayno waa inaan naqaanaa objectiveskeena ama ujeedada aan ka leenahay xayeysiintan. xayeysiin walba waxay leedahay ujeedo gaar ah. intaas ujeedo ayaa jirto. ujeedada koowaad waxaa loo yaqaanaa awareness. ujeedo oo ah in la sameeyo awareness. awarenessna waxaa la dhahaa in tusaale la tuso dadka ugu badan in la tusiyo kaliya iyadoo targetku uu yahay inay dad badan gaarto. awareness markaa ku dhufano waxaa soo bixi doono waxyaabahaas. tusaale waxaa kamid ah awarenesska reach way kamid tahay, brand awareness, video views macnaha in videoga la daawado, store location awareness tusaale inaad location ku xirto. marka ujeedada koowaad ee xayeysiin loo sameeyo waxaa la dhahaa waa awareness. ujeedada labaad waxaa kamid ah traffic oo kale, waa ujeedooyin kamid ah xayeysiimaha nooc kamid ah. ujeedada traffic waxay xooga saartaa in dadku ay booqdaan website-kaaga, application-kaaga ama Facebook oo kale, tusaale event. marka traffic haddii aan dhahno waxyaabaha aan available-ka inoo ah waxaa kamid ah link click. dadka inay click linkiga siiyaan website-ka aadaan oo kale. landing page view ama landing page oo tusaale aan meesha kusoo diyaarinay inay dadka wax akhristaan ama ay xog ka qaataan. iyo messenger oo kale, dadka inay messenger noogala soo hadlaan, Instagram inay noogala hadlaan iyo WhatsApp inay noogala hadlaan. midka ugu dambeysana waxaa waaye traffic oo available-ka ka ah call. marka intaas shay ayaa available ku ah ama aad heli kartaa marka aad isticmaalaysid xayeysiinta qaybta objective-keeda uu yahay traffic objective. midka saddexaad waxaa la dhahaa waa engagement objective. engagementigaas marka waxay dheer tahay kuwii horeeto waxyaabo badan. tusaale engagement waxay xoog saartaa dadka inay message ku soo diraan WhatsApp haddii ay tahay messenger, dad inay videoga daawadaan, posting inay engagement ku sameeyaan sida inay sameeyaan page like, inay sameeyaan comment, inay sameeyaan share. waxyaabahaas waxaa loo yaqaanaa engagement. waa macnaha inay sii dhaqaajiyaan, inay like iyo waxyaabahaas badan ay ku siiyaan. marka haddii targetkaaga uu yahay engagement waxaa heli doontaa ama available ku noqon doonto messenger, Instagram, WhatsApp way kala soo xiriiri karaan. video views waa sameynaysaa. post engagement haddii aad saartid waxaa waaye haddii aad u baahan tahay dadka inay la falgalaan sawir aad soo dhigtay ama muuqaal aad soo dhigtay commentiyo badan, share badan aad hesho, waxaa waaye markaas waxaad targetkaaga uu yahay ama xayeysiinta waxaa isticmaalaysaa loo yaqaano post engagement. conversion way kamid tahay haddii aad rabto in maaragtay conversion la sameeyo ama website-kaaga la booqdo wax laga iibsado ama waxyaabaha noocaas oo kale. callna wuu kamid yahay in dadka caadi ay kuu soo call gareeyaan. waxaan ka soo baxnay awareness waa muuqaaladaada inay dadka gaaraan ama brand aad sameyso, brand awareness dadka inaad ogeysiis u sameyso. traffic in website-kaaga iyo meelahaas la booqdo. engagementna waxaa la isticmaali karaa badanaa sometimes marka aad rabto page like oo kale, page-kaaga inuu koroo kale haddaa u baahan tahay waxaa isticmaalaysaa engagement. objective-ka afaraad ama ujeedada afaraad oo aan available inuu ah inaan xayeysiin u sameyno
waxaa loo yaqaanaa waa lead generation. waqtiyada hore saddexaa loo qeybin jiray ee qaabkan u diyaarsanaa jireen update sameeyaan mar badan. hadda muuqaalo hore haddii aad daawanaysid waxaa arkaysaa in saddex loo qeybiyo. waxaa loo qeybin jira awareness, consideration iyo conversion. marka consideration waxaa la gelinayay engagementiga, leadka iyo maaragtay waxyaabahaas consideration ay gelayaan. soo marka qaybta lead ama objectiveska leadka waxay xooga saartaa intaan macnaha form dadka inaa heshid daato oo maaragtay ama ku hel website-kaaga ama maaragtay instant form waxyaaba noocaasa. marka midka koowaad oo available-ka ku ah markii aad lead xayisiin lead sameynaysid waa mid loo yaqaan instant form ama form oo fudud oo Facebook ku diyaariyay oo aad buuxsanaysid, taasoo aad dadka ka heli kartid email-kooda, numberkooda, magacooda, waxyaabahaas inaad dadka ama su'aalo iyo waxyaabo badan dadka aad ku weydiin kartid. Messenger iyo Instagram way leedahay. waxay kale leedahay conversion iyo wax loo yaqaano maaragtay maxaa la call. marka instant form waa iska cancel kartaa, waxaa isticmaali kartaa landing page ama page adiga website-kaaga aad ku soo diyaarisay ayaad ku bedeli kartaa booska instant form. objective-ka shanaad waxaa loo yaqaanaa waa app promotion. tusaale business-kaaga lacala ama e-commerce oo kale ayaa wuxuu leeyahay application, wuxuu rabaana in application-kiisa oo xayisiin u sameeyo. marka application-kaas xayisiinta u sameynaysid haddii aad u baahan tahay qaybtaas ayaa dooran doontaa. marka app promotion-ka wuxuu xooga saaraa labadaas qaab oo tusaale app install. tusaale waxaa rabtaa application-kaaga oo e-commerce application ah lacala inay dad badan la degaan si aad mar walba customer uga dhigato waxyaabo badan ugu dirtid. soo marka waxaa dooran doontaa app install oo kale. app events waa jirtaa. markii aan hadhow xayisiimaha qaybta conversion-ka iyo meelahaas aan galno ayaan sameyn doonaa. midka ugu dambeyso waxaa la dhahaa waa sales, waa conversion, waa qofkii soo bislaaday, qofkii loo sameeyay awareness, traffic, engagement, lead. macnaha qofkii tusaale meelo badan soo maray. qof markuu wax iibsanayo waxaa la maraaxil soo maraa. qofka inuu wixii arko, markuu arko kadib interest oo galo, markuu interest galo baaritaan oo sameeyo, baaritaano fara badan markuu wixii ku sameeyo kadib markuu qofkaas oo noqdo maxaa la dhahaa conversion ama qof oo customer wax iibsaday, macnaha oo iibsaday productigi ama service wixii noqotaba. saleska marka waa qaybta conversion-ka targetkiisa ama wuxuu xooga saaraa conversion. marka tusaale haddii aad rabto in xayisiintaada ay conversion noqoto, aysan naqanin awareness, aysan naqanin engagement, aysan naqanin link click, waxaad target garanaysaa ama waxaad isticmaalaysaa conversion-kaas waa isticmaalaysaa. waxaa kaloo sales markii la isticmaalayo xayisiinta saleska waxaa loo isticmaalaa catalogs-ka. tusaale markii aad rabto inaad xayisiin saarto website-kaaga ama catalog aad ku diyaarisay maaragtay business setting-kaaga, xayisiin inaad u sameyso catalog ama alaabo badan, markaasoo kale waxaa la isticmaalaa waa sales. tusaale sales markii la joogo waxaa la isticmaali karaa Messenger, Instagram, WhatsApp uu leeyahay saleska. callna waa isticmaali kartaa. marka intaas dhammaantood waa inaa mid kasta taqaanaa. cashiradeena soo socdo, cashirka ku xigo waxaan ku baranaynaa audience-ga, saddexda nooc audience loo qeybsho, sidee pixel loo set up gareeyaa, waxyaabaha pixelka muhiimka nooga ah ayaan koodii ku horumarin doonaa. kadibna waxaan sameyn doonaa dhammaan intaan awareness xayisiina aan sameynayna kala duwan. waxaan sameynaynaa traffic, engagement, lead iyo sales ayaan sameynaynaa. soo marka mid walba xayisiin markaa sameynayno badanaa waa isku mid, laakiin waxay ku kala duwan yihiin objectiveska iyo qaababka ay ku kala duwan yihiin. marka waa muhiim inaad mid walbo si dhammaystiran u fahanto. waxaan rajaynayaa inaan wax badan ka fahanay sida u shaqeeyo ads manager-ka and basically waxyaabo badan concept inaan ka qaadanay. ads manager waxaan soo sameynay page-ka aan diyaarsanay, business manager aan diyaarinay ama business account, waxaan diyaarinay ads manager ama ad account. marka intaas diyaarinay payment aan ku xirnay, page-ka aan ku xirnay, WhatsApp-ka aan ku soo xirnay, markaas ayaa waxaan maraynaa qaybtii ads manager-ka ayaan gudaheeda soo galnay. gudaheedu qaabkaas hadda aad u jeedo u muuqato. kadibna waxaan sameynay
in aan baranay meelahan dhankaana waa baranay dhankaana waa baranay. Hadda marka waxaan gudagelaynaa cashirkeeni social media marketing ayaan gudaha usii gelaynaa. Marka maalinba maalinka ka dambeyso waxaan sii gudagelaynaa waxyaabo oo muhiim ku ah. cashirkeeni afaraad intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa. asxaab badan oo inagu xiran oo la socoto cashirkeena ama koorsadeena social media marketing waxay codsadeen in aan soo dedejino muuqaalada. isbuucan gudihiisa waxaan soo gadilin doonaa ugu yaraan 3 cashir. isbuuca kaleetana waxaan isku dayi doonaa inaan dhammaystirno koorsada oo social media inta ka harsan. labada isbuuc gudihiisa insha Allah haddii inoo suurto gasho inaan ku dhammaystirno. nala soco, commentiga noola wadaag wixii kugu adkaado ama wixii aad u baahato oo su'aal ama talo ah. waxaan rajaynayaa inaan wax uun ka caawiyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.